degmada Doolow ee gobolka Gedo caawa waxaa ku hoyday ciidamadii ugu badnaa ee Jubbaland kuwaasi oo ka soo baxay furumaha hore ee ay isku hayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka gadal markii maalinnimadii shalay ahayd dagaal halkaasi uu ka dhacay isla markaana looga taagroonaaday ciidamadaasi waxaa la tilmaamayaa hadda inay gaareen gudaha magaalada Doolow ee gobolkaasi Gedo isla markaana halkaasi ay dib isaga soo abaabulayaan soo dhawaada haday tahay markaaga kuugu horeysay aad soo booqato halkan subscribe noo saar noona la garay muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa waxa ay ku waramayaan in ciidamadii Jubbaland ay dhawaan ay fooda istaareen kuwa dawladda federaalka Soomaaliya inay u dhaqaaqeen dhanka iyo magaalada Doolow ee gobolkaasi Gedo halkaasi oo looga yeeray waxa la tilmaamayaa in mar kale halkaasi ay isku soo abaabulayaan si ay u wajahaan dagaal kale oo ay ku qaadayaan magaalada Balad Xawo oo guud ahaanba lagala wareegay iyo tuula Aamin oo dhawaan laga saaray waxaa la tilmaamayaa in halkaasi uu ku sugan yahay Maxamuud Sayid Aadan oo maalinimada berrito u dhaqaaqayo magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Itoobiya si halkaasi uu kulamo wala soo qaato madaxda ugu sareysa ee dowladda waddankaasi Itoobiya ujeedka uu halkaasi u tagaya waxaa la tilmaamayaa inuu quseeyo guud ahaanba sida laga yeelayo xaaladda gobolka Gedo iyo xadbeeneedka ay wadaagaan dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya si markaasi loo sii ambaqaado wejiga labaad ee dagaal ay ku wajahayaan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana laga abaabulayo degmada Doolow ila kale ayaa ku nuuxnuuxsanaya in saraakiil kale iyo ciidamo kale oo aad u tiro badan oo kuba Jubbaland ka mid yihiin laga soo qaadayo magaalada Kismaayo isla markaana la geynayo magaalada Doolow walow ay dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan ay xanibaad ku soo rogtay isla markaana ay dib uga qaaday waxaa la tilmaamayaa in mar kale Jubbaland ay isku dayayso in abaabul kale oo ciidan ay samayso isla markaana diyaarado ay ku daabasho ciidamo isla markaana ay geyso gobolka Gedo qorshaha ugu muhiimsan waxa ay tahay in Jubbaland ay hakiso guud ahaanba doorashada la filayo dhawaan inay ka dhacdo gobolkaasi Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharey oo ay abaabulayaan Cabdirashiid Janan iyo taliyaha nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo iyagu hogaaminayo qorshaha lagu dhisayo Jubbaland cusub taasi oo laga yigleelayo magaalada Garbaharey ee xarunta gobolkaasi Gedo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu warqad ka soo saaray dagaalkii dhawaan ka dhacay gudaha gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Balad Xawo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ku sheegtay dagaalkaasi inuu ahaa mid u dhaxeeya laba kooxood oo halkaasi ku dagaalamaya waxaana uu sheegay in guud ahaanba dagaalkaasi la soo afmeero waxaana uu ugu baaqay ciidamada halkaasi ku sugan ee magaca dowladda federaalka Soomaaliya ku dagaalamaya inay halkaasi isaga soo baxaan isla markaana ay ku soo laabtaan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho talabadan waxay u muuqataa isla markaana ay u dhigayaan qaar ka mid ah falanqeeyaasha arrimaha siyaasaddu inay tahay talaaba waa ku dilay ee raali noqo sida ay fasirayaan haddana waxaa la tilmaamayaa in angal kale laga siin karo kaasi oo u muuqanaya guud ahaanba in dowladdu aysan ku lug lahayn dagaalkii ka dhacay gobolka Gedo madaxweynuhu waxa uu ka tacsiyay dagaalkaasi isla markaana waxaana uu janno u rajeeyay dadkii halkaasi ku geeriyooday balse ilahan waxa sidoo kale ay tilmaamayaan in dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaanba aysan dagaalkaasi ku lug lahayn waxa halkaasi ka socdana ay aad ugu xun tahay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay dadka ku dagaalamaya gobolka Gedo oo kala jeedo Jubbaland iyo ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan in guud ahaanba dagaalkaasi ay joojiyaan isla markaana halkaasi lagu ekeeyo wixii hadda ka dambeeyana aan lagu dagaalami doonin gobolka Gedo waxaana ugu baaqay in la yimaado miiska wada hadalka si xal waara looga gaaro dagaalka ka ogan gobolkaasi Gedo waxaa la tilmaamayaa Axmed Madoobana inuu ku sugan yahay gudaha magaalada Nairobi halkaasi oo kulamo xasaasi ah ka wado una la qaadanayo saraakiisha iyo xubnaha muhiimka ee beesha ogaadeen ee ku sugan gudaha magaalada Nairobi waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba uu abaabulayo shirar muhiima kuwaasi oo guud ahaanba lagu muujinayo sida ay u diidan yihiin in la dhaco kursigooda isla markaana lagu wareejiyo beesha Mariixaan lagana dhiso maamul cusub gudaha magaalada Garbaharey ee xarunta gobolkaasi Gedo Maxamuud Sayid Aadan oo isaguna dhankiisa abaabulka qayb ka ah ayaa la tilmaamayaa inuu ka degayo maalinimada berrito ah gudaha magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Itoobiya si uu u karkariyo xaaladda guud ee gobolkaasi Gedo iyo hogaamintiisa dagaal kale oo uu ku wajahayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi fadhigoodu yahay ciidamadan ayaa la tilmaamayaa inay isaga soo baxeen fariisinkii ay ku lahaayeen
aagga magaalada Mandheera isla markaana ay qabteen dhanka iyo magaalada Doolow waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba ujeedka ay halkaasi uga ruqaansadeen ay tahay in ay dib isugu laabanayaan isla markaana mar kale ay soo abaabulayaan weerar kale sida ay tilmaamayaan ilaa dhaxalgal ah oo ku sugan magaalada Doolow oo arrimahan isha ku hayay. waxaa kale oo ay ilahan ku waramayaan in Jubbaland guud ahaanba ay markan danaynayso inay qaado tallaabooyin wax ku ool ah ka gadaal laba mar oo ay ku fashilmeen dagaal ay ku wajaheen dowladda federaalka Soomaaliya ee aagga degmada Balad Xawo waxaana ay markan doonayaan inay dib isu adkeeyaan isla markaana ay abaabulaan dagaal kale oo ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya. xiisad u muuqata isubirtumasho iyo dagaal kale oo hor leh ayaa waxa uu wajahaya gobolka Gedo waxaase la tilmaamayaa dowladdu inaysan dheg jalaq u siinayn isla markaana ay si amba qaadayso wejiga koobaad ee dhismaha maamulka cusub ee halkaasi laga yegleelayo ee Jubbaland cusub ay dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya shaacisay. tallaabadaasi oo dhowaanba laga wareejiyay galkiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre kadib markii ay fooda isdareen madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud awood qaybsiga guud ee Jubbaland iyo hogaaminta cidda yeelanaysa ka gadaal markii madaxweynuhu uu soo jeediyey in guud ahaanba laga takhalusayo maamulka Axmed Madoobe isla markaana laga wareejinayo madaxweynaha beesha Ogaadeen loona wareejinayo dhanka iyo beesha Mareexaan waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi uu si weyn uga gadooday ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre. abaabulka ka soconaya gobolka Gedo ayaa wejiyo kala duwan leh waxaase la tilmaamayaa inay ku lug leeyihiin wadamo shisheeye oo ay ka mid yihiin isu taga Imaaraadka Carabta, dowladaha Itoobiya iyo Kenya kuwaasi oo abaabulkan qayb ka ah. waxaa sidoo kale dhanka dowladda federaalka Soomaaliya iyaduna dhankeeda jira dowladda Masaarida oo iyaduna tallaabadan qayb ka ah isla markaana ciidamadeedu dhowaan ay soo gaarayaan gobolkaasi si ay qayb uga noqdaan howlgalka cusub ee dhowaan galka ee USOM kaasi oo dhowaan ka curtay gudaha dalka. qorshahan ayaa la tilmaamay inuu yahay mid ay dowladda federaalka Soomaaliya ku doonaysay inay kaga maaranto maamulka Axmed Maxamed Islaam Madoobe kaasi oo fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland. waxaa la tilmaamayaa in Maxamuud Sayid Aadan tagitaankiisa magaalada Addis Ababa ay daaran tahay in Itoobiya ay siiso hub iyo saanad ciidan isla markaana ay siiso saraakiil kale kuwaasi oo sahminaya xogaha ku aadan dagaalka iyo abaabulka ciidan ee dowladda federaalka Soomaaliya walow dhowaan ay qabteen ciidamada uu hogaamiyo Cabdirashiid Janan Basaasiin 10 kor u dhaafaya kuwaasi oo Itoobiya ay ku daadisay gudaha magaalada Balad Xawo iyo aageeda waxaana la tilmaamayaa markan in guud ahaanba ay fajigiyeen isla markaana ay qaadayaan isku day kale oo ay ku ogaanayaan xogaha sirdoon ee ka jira gobolka Gedo iyo qorshayaasha dowladdu ay ku doonayso in guud ahaanba ay ku qabsato gobolkaasi. dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira gobolka Gedo ayaa u muuqanaya kuba marba markii kasii dambaysa kasii daraya isla markaana cirka isku sii shareeraya lama soo ogaa dhaqdhaqaaqyadan iyo halka ay saldhigan doonaan.